kulanti waxaana wanaagsan daawadayaashii qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkan nagala socotaan waa Miiraale TV oo toddobaadkii baad hal mar kala socotaan barnaamijka Hibiye Hal Abuur kaasoo aalaabay la socodsiiso anigaan Har Xasan Ismaaciila maanta waxa barnaamijka noogu casuuman Axmed Qani Ibrahim Jaamac oo ku magac dheer Hal Abuur Harbi ku soo dhawow Axmed Qani wanda walaal ma santahay anaaray wada staadiga Miiraale TV ee dhamaanba Miiraale TV adoo horta bulshada su'aashayda koowaad waxay taariikh nololeedkaaga taariikh nololeedkaygu qarrona fudud malihi waxaan hay ku dhashay tuulo u jirta 3 kilomitir oo ku dheer halkaas waxay waxbarashada dugsiga hoose dugsiga sarana insha Allah milima dhamaan wada hadana ku dhashay ganacsiga صح waan shaqaysaa Axmed Qani markii kugu horeysay aad ogaatay inaad wax abuuri karto aad hibo leedahay goormeed ma xasuusataa hilaadi waxay 2012 ma xasuusta maadsadii koobaad aad markaa samaysay u jirtay waan xasan kara صح waxay ahayd hooyo masalaha mugti صح maxaad hagartaamo ii diidood naftayda habaysay hooyoy maxaad helin toosanay tixooda tii weligaa hasiideyn maxaad hamigayga taageertooda tii higsigaaga noole maxaad igu tiri hugayaan higaadiya qalinka si hay maxaad ku hamiday hirgelideeda hooyo igu tiri haliyay noqo maxaan ka helay habneen waanad horaadkaysiisay hooyo maxaan ka helay raadbeelad hamuun iga biisay hooyo maxaad hurdadiidii awgeed habeen lid weeday hooyo maxaad ii horseeday hawlkarnimada hurdayda ku daashay hooyo maxaad hadimooyin iga dhowrto aniga habsiisay hooyo maxaad hiil ila taagneeyad guusheeda horseeday hooyo maxaad heesa gaara ii howltad hobay iyo hobay tiri hooyo maxaan ku hayaa abaal hodan hooyo marna aan imaamin ما شاء الله runahaantii ma saad u qiimo badan baad maadaama ay ku saabsan tahay hooyo oo adduunka xuquuq qaalisan ay tahay hooyo intii ay u nooshay Ilaahay barakeeyay dhimatayna Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo baan leenahay waxa jirta maansa aad u qurux badan oo si farshaxanimo ku jirta aad u tiriso la yiraahdo dajiga dajiga dareenkaad ka tirisay kulli dabcan inaan bay khusaysaa waan filaya dareenkaad ka tirisay iyo balaado nala wadaagay shucuurta waxa jirtay maalmaha kamid ah ayaan waxaan kulanay in Soomaaliyeed marka ayaan taho maarag maalintii ugu dambeysay weeyaan marka waxa sheegaysaa intaas hadan heli lahaa san ma waxaan wada qaadan iyo kale dareen baa kugu dhashay inta markaad aragtay صح inoo bilo waxay ka bilaamaysaa Ilaahay baa duqaadkiyo dabacsanida hadalkiyo deganaanta socodkiyo qosolkiyo dibnaha furan uu siiyay darajo deeqbaad sideetaa anigana ideeqdo naftu inaad la duusho diyaarado la raacdo dubay kula tarxiistay igu daalisayo naftu igu tirqayaysaa dahab luma sidaa tahay deemeeda araguna adigay ku doonaan oo kugu danseegan uu diiday inta dib u tilwaybi dabcan oo kugu danseegan dahab luma sidaa tahay deemeeda araguna adigay ku doonaan oo kugu danseegan xiiftiin shay dunida bashida ayaa degmooyin iga dhigan tahay dawadii nafteedii inaad tahay dabiibkii daahba waan saarnayn dagal inaan yagleelo naftu kugu degtaabaan u danleeyay caawana dumartii u sidatay noloshayda deeqdeen halka ii shidaad noqon darajada aan gaadhiyo dibindaabiyo nacabtii daryeeshabaa noqon yaadihiyadeydii duruufaha qaraar iyo danta ila wadaagtay idawaysabaa noqon dad dhowrta abidoo kala daama noqon oo darmo wada lahaado diradiraha dayrsho dayr adag ka yeesho ubadaad haysto farxad lagu dareemo isku dana ayaa noqon inta dunida joogtana dayacmaan dareemeen dugsi dhaxanta celiyadeed baad ahaan leyd nafta tii dawaysay dabiibkayga noqotay dajiyaad ahaan leyd dabuubtaada waxaan iyo dibna kala furkaagana hal marmaan ka daareen deymada isha nood markale ma qabateen marka aynu joognaan halka ugu dalxiis wacan daalan ku geyn la marna dawga sheekh iyo dekadii barbare iyo burcada amaheediyo damashii hargeysiyo dile iyo sanaag iyo awdal tacalideedii halka doorata dajiyay ku geyn la ما شاء الله halka doorata wad la sheey ku geyn lahaa runaantii goboladii iyo wad soo wada martay meelii dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku caan ka ahay dabcan marka inantii waa markii kugu horeysay markii kugu dambeysay dib u maaray insha Allah dajiyo in rajaynayna mar dambe aragno waxa jira waan hal abuur baa tahay da'yar maxaad higsanaysaa inaad noqoto nolosha aysanaya waanidii ugu horeeyay siday ahaayeen sida abwaanidii ugu horeeyay صح inaan wax bedelo mustaqbalka waan marjiinay abwaankii baad sileedahay heerku abwaannimada ka gaadhay oo kale ka gaadhay inkastoo ay hibo tahay abwaan hadire صح
aan ku rajaynaa insha Allah inaad gaadho waxa jirta maasa kale oo dareen shacab la yiraahdo dabcan waxa qusaysaa dareenka shacabka heer Soomaaliland sidaan filayo bal sidaad u samaysay maasada iyo waxa kugu curiyay iyo noo faaleynaya maasuux xallisan nimankan siyaasiyiinta ay dalka markay dhinac wada صح يودا يرتان هودي حسمي الهلسان قصني ما خلصتها صح ودنا بلعب كرتا منصوح كبلا مثلا dalkayga dadka gabo qabyaalad ka doorbidee tirtiro buu noqon lahaa dunidu way aqoonsan lahayd dayaxa wuu gaari lahaa haddaan dan la degin maalinba kii doonayee kursigan u diyaar ah baa dan yarta beentu duuriyo anaa darajooyin wada anaa nabarkii daweyn anaa dayacii yarayn anaa dalka horumar geyn dayartu ma tahriibayaan dulmigu wuu suulayaa intaasuu ku doodayaa markaa dadku aaminee kursiga loo doortabuu wixii dadku wada lahaa dibadda ugu duulayaa daaruu soo dhisanayaa dalkana waxba uma taree dadkuu sii kala diraa siyaasiyadda ah oo maalinba xusbi doonayo dangaara wataay hulay ma aragta siyaasiyiinta maalinba xusbay taageersan yihiin waa run siyaasadda alle baan filaynaa dadkuu sii kala diraa siyaasiyadda ah oo maalinba xusbi doonayo dangaara wataay hulay dadkayguna kama ilbaxo waxaa dib u dhaca ku riday ninkii dalka boobay bay qabiilku difaacayaan nin ubadkiisii dirto hargeysaba dacaleh bay qabiilku difaacayaan iyaga dulmi baa la digay haddana ma dareensanaba dibnaha ayay kala furo ninkeebuu daaro dhisay ninkeebuu duubu xidhay ninkeebuu duuliyaday xagaadhsiiyey sare adaa iska daalayo cidladan ku danseegayee bulshay dulmi baan arkaa duwaaqaygaa hadloo dareen baa toosi yidhi damiirku wuxuu i faray inaan dayarti la shiro dalkani innagaa waddada wataaduqaydii luntee dareen shacab buu rabaa ninkii loo doortay baa ilay dayacaa badee inaynu ka doodno oo dunida la tallaabsanno dayaca biinaan rabaa ilay mudane noo daacadoo dadkiisu wataan rabaa dursooca mid saaro oo dadkana mid noqdaan rabaa shacabka mid dareemo oo daryeel fidiyaan rabaa duruufaha nagu hurdana mas-uul didiyaan rabaa dunidu dayaxay tagtee inaan la degnaan rabaa intaasoo dabaqadood bulshada isku duubanbaa ilaa ay ka dabaalatee damiirka mideeya oo docdiina adkeeya oo dadkaygow daacad noqo kolley maansadaas meelo badan bay galgasho siyaasadda iyo run ahaantii adigu ka Axmed Qani ahaan maanta haddaan ku yidhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan kuu dooran lahaa maxaad samayn lahayd laakiin se han siyaasadeed ma kugu jira inaad marun siyaasadda صح ما حسيسي وين قرتي سؤال بنكو يدينيا هلا بور تعالك مع مسنتها وهو دع كل هاو jirtay runahaad dad badan baa yiraahdaa jacaylku ma jiro waa kan maxaad dadka ku oran lahayd maadaama aad dareentay adigu ku jira dadka ana qosanayn dad badan aqoonsanayn صح dad badan aqoonsan jira uu jiraaban ko waxa jirta waan maasa kale oo habluhu waahiin la yiraahdo dabcan habluhu de way mar weyn la dhasheen mar waa dhasheen صح mar hooyadii yihiin runaantii marna waa bay la dhasheen marna de waa bad guursan doontaan ka habluhu way mudan yihiin markasta la amaano صح أساساً ما سأسوي وما استيقظ من السياسة صحيح أتمنى سعد صح وحيلا هاي حبله هو هنا دردرا خنكينا يكروك عشان ورمود بينويهين وحانا الهمامي كريم وراد كانوا جيو وحي هولي لمرين دميلكو نيكو هردان وبال قلانينينو هنتاقي عيل بدي حبله هو لمهران حبله هو لمهران حبله هو لمهران هل يجد فانا ايو haldoorka nin sheegtayo hogaamida dunida waga hadaanay haween hagayn halka may gaarileen halka qararka inaan ciilayo ninkii hagardaamo baday waxooyaan rabo wuxuuna hilmaansan yahay habkii dhaqankii wacnaa hadma laga tagi hidii hanaankii suubanaa hablaha sharaftoodii sare hadma hoos loola digay sawtii loo heerin jiray hadma iyagii la hooyay hadma hubka loo gurto sidii cadow lagu hanqaday halkii la difaaci laa hantaaqo hadma la baro habluhu waa hooyadeen habluhu way nala dhasheen habluhu way noo dhaxeen habluhu way naga dhasheen ninkiisa hilmaansanow waleehay waxbaa tahoo jirkaa muqdaana tegin hayaankaas kor wadaa walee hoos buu dhici intaad tahay horarkan baas
والله حكبان الأوران والله هكهبانad oran dabcan waxa jira baraha bulshada wada isticmaashaan filayaa hal abuur ayaamii ugu dambeysay hablo ay rag xumeynayaan way falal aad foolxun kula dhaqaaqayaan maxaad kula talin lahayd dhalinyarada ragga ah hablo xumaan nagama geeyaan sax ilaahay waxa ragade duurka masuula inay ilaaliyaan ilaahay ka shako صح ayaa lagu talagalay صح marka waxa leenahay hablaha la ilaaliyo dabcan sidoo hal abuurku sheegay waxaan leenahay rag oo hablaha la ilaaliyo maadaama idin la dhasheen idin dhaxeen dali doonsaan insha Allah waxaan filayaa inuu wadada saxan ilaahay idin ku rido rag oo dhan isku mid maaha dabcan shanta farooda bilaadan si aan u sineen baan raguna u sineen intii wanaagsan ilaahay wanaagooda ha ugu sii wado kadib awaan hadaynu soo noqono dhinacii kaftanka adigu adi ahaan maanta haddaan ku odhan lahaa 3 fanaan oo ka mid ah hablaha fanaaniinta ee heesa 3 hablood mid waad guursanaysaa mid waad eriyeysaa midna kolley dookhaaga noqon mayso haa 3 hablood waa Yurub Geeyo طبعا garanayso fanaanada aan halkan aan ka salaamayno nugbaad aragsan sidoo kale fanaanada aan halkan ka salaamayno iyadana iyo Xaliimo Gobaad 3 fanaanadood 3 sharaf niga mudan صح waarun 3 sharaf niga mudan laakiin mid leeyahay midna wala geefsanay midna guriga waxa kaaga shaqeyso waxaan ku eegnaa ubad kursan lahayd ubad aragsan صح Yurub Geeyo Xaliimo soo haray Xaliimana way iska taglaayeen Yurub Geeyo Yurub Geeyo dawati صح ubad jooglahay dabcan waxaan filayaa shashada waxa qabatay ubad aragsan 3 fanaan baad banu salaameynaa runaantii sharaf iyo karaam naga mudan yihiin barnaamijkeega dhaxtaal u ahayd haddaan ku soo noqono dhinacii maansada maanse waxa jirta la yiraahdo wareegto oo dabcan waayaha adduunka ka sheekeynaysa haddaan dhinacii maansooyinka abwaan u soo noqono waxa jirta maanso wareegto la yiraahdo maansada waayaha adduunka baad ka tirisay filayaa bal maansada wixii kugu dhaliyay inaad tiriso iyo xilliga tirisay iyo adan oga faaloonay maansada waxa sameeyay steedka bishii xad 2020 صح sanadkan marka maansada waxaan dad waa taloon iska talo dadka roogtan yalla talinaysa marka dadka dhan bay iska socotaa dadka oo dhan ha sax anagu waan ku jirnaa waan maleynaya oo ku saacaday waan dhageysan doonaa waxay leedahay walaaca ka saar naftaada ururka ka sifee ka shaada adduunyadu waa wareegto waqtigu waa maalmo kooban wadada xumiyay ku raacay wanaaguna waa sid weyne samuhu yay kula xumaaneen ayaamuhu waa waraaqe ka geeyaan wanaaga dadkuna waa lama huraane wadaca ka dhow naftaada shalay wehelkii wacnaana hadduu maantaba ku weeqay adigu waabay hasin walaalkana ku ahaa adoo walbahaar la jiifa qofkii kugu wiirsanayay adigu fajaha walaal iyo dabin hawo maleegin waxyeelana hawga geysan hadduu wacadkii dhexdiina isagu weydeeyay maanta walaalnimo buuxda muuji wanaagna ka dareen ururka qalbigaaga jiifa wajiga yaan laga dareemin kullay nafsi baa wareega ninkii waadaan ka buuxshay marwuu wuu heli walaacu marbuu waayaha la ciiri marbuu wehelkaaga dooni wanaagaagii xasuusan wacnaantaadii xiisi weedhii hadalkii wacnaana marbuu cidiraahda waayey gadaalbu kaa waraysan adigu wehelkuu miciina kuwaaniyo oo waraysta naftaadiya waayaheeda walaal marna waayimaysi intaad kii hore ka weyday wadaadka dambaa ka feyne samirka weyn ka buuxso dadkuna waa kala dareene waralle markuu soo xumeeyey waartaa ku wada qiyaas waa dhab waa sida bulshadeena ka jirta haday maanta qof leena xumeeyo inaynu nahno gidi dadkoo dhan way wada xun yihiin صح maansad run ahaantii xambaasan dhinacyo badan oo xaqiiqatan dareen geliyay bay ka hadlaysay maansadaasi daawada halka nagala socotay waa Miiraale TV barnaamijkii Hibaya Hal Abuur wuxuu ku sii siiqayaa guntii iyo gabagabadii maansada ugu dambeysay abwaanku inuu soo xidhayana waxay tahay inuu ku soo xidhayno maansada ugu dambeysay inuu ku soo xidhayna barnaamijka Hibaya Hal Abuur oo marti noogu ahaa
abwaan axmed qani ibraahim jaamac run ahaantii maansadan waxaa la yidhaahdaa waa gododle baas sida magaceeda ka muuqata waxay didi ku tahay ragga gododlayaasha bal maansada adoo xaaladad ka tirisay iyo nala wadaagaya maansada waxaa jirta oo simaamad weeye xabara bishaad haystay qaarna u doodiyaan afxaasna qaarna xaasna sax ama waxa kamid ah kuwii xaasla u doodiyay maasha Allah sababta inuu kala filan jiraan inuu jirtay imika nin tii koraba aan ku filan ayam kala doonay ma laba kala sax haday waxaad marka haday doonaysaa inaad war basato ilaahay wuxuu yidhi cadaalad samee tii dambe aan tii hore ka tagtay dhibteeda leedahay calaashan ku soco marka xaleeday ninka xaas badiya ninka xaaska ku dhalihi ma laba istacaliyaal in aan daal arkayno dibindaabiye qabino farxad iyo damaansho dunida ku joogo daacad loo ahaado aan cidi ka dugino dayaca aan arkayno dushiisuna dhalaasha dadii xafla ninka diiftu fuushee markastaba dayaysanee dayacuna ka muuqdee dangaladu ha joogtee dalaaqdii isii iyo dooda loola dul joogay hadba dakharku gaadhee door laga dhameeyey dadku wada canaantaa waa godle baasmaadintiisa garanay run ahaantii waa maaso kooban laakiin micno badan xambaarsan baynu odhan karnaa run ahaantii waad maqlaysaan afar xaaslayaasha dadka u doodayo diintu way banaysay in afar xaas la guursado laakiin diintu inaguma khasbin oo khasab maaha waa kii awooday inuu intaasoo xaas uu kafayn karo run ahaantii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qiimaha badan aadna siisay axmed qani ibraahim jaamac oo ku magac dheer hal abuur xarbi run ahaantii waxaan filayaa marar kaloo fara badan inaadna soo booqan doonto aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga halkan haddaan fursad abwaan ku siiyo barnaamijkii oo guntiga gabagabadii kusii siqaya yaad ka salaami lahayd waxaan salaamayaa cidda la salaamay ugu mudan waa hooyaday iyo aabahay walba salaamay sax maasha Allah salaamayaa intii la dhaato walaalka salaamay sax waxaan salaamayaa adeeg salaamay waad mahadsantahay waxaan salaamayaa saaxiibkay Axmed Saciid Muuse iyo xaaskiisa labadiisa wiil iyo Xabsi Bushaawi aadaan salaamayaa dhammaantood waxaan filayaa inaan dhammaantood ay ka qaadi doonaan aniga ku hor fadhiyana waan ka gudoomi salaantaada halkaa waxaynu uga eeg barnaamijkeennii hibe iyo hal-abuur toddobaadkiiba hal mar kala socotaan Miiraale TV waxaa aadaaba idinla socodsiisa anigoo Anhar Xasan Ismaaciila barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono aragti wacan bilaayde cadil